السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتين ما أنت واحد وأنا لحية لباتن كبيشة تضبط جولاي صار نتكلم بدو كون إيو لحية لباتن مقال كان ما أنت وحن ربعنا إن كل وذا قلت تضبط كهر وحن يدي شيء إن سبينش كأمل لدس كلاجها لي بكتيريا اللي ذاته إسكولوس برايسيس هذا هو السيفا فيسا ولي لما حكمينين قبلنا أفرتن أي كورونا فين أي جارتي لكن هذا بكتيريا كلا أولي ذاته سالمونيلا ayaa waxa laga helay mid kamid ah ukumaha la cuno gobolkee laga helay imisa kiis ayaa ilaa ay hadda la helay imisa qof ayaa isbitaal loo dhigay maxaa lagu la talinayaa hadii gurigaaga ay yaalaan ukumahaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya dawladda Iran afayeen u hadlay ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxa uu shalay TV Iran u sheegay qasaaraha Mareykanka gaaray midka hantiyeed iyo midka nafeedba in uu ka badan yahay inta Mareykanku uu sheeganayo haddaba imisa diyaaradood ayay burburiyeen imisa ciidamada ayuuna leeyahay Mareykanka waa ay ka dileen sidoo kalena waan idin la wadaagaya marka asxaabi maalmahan YouTube-ka waxa muuqata in uu hoos noo dhigayo oo muuqaalada aan soo galiyo dadka uusan tusaynin marka waxaan kula talinayaa dadka inay share gareeyaan qofka aan hadii notification-ka uma dhacayo marka muuqaala aan soo galiyo marka waxay dadka u maleeyaan inaanba muuqaala aan soo galinaynin marka qofku in uu search gareeyo magacayga isla markaana sidoo kale uu muuqaalka daawado markaas kadib YouTube waxa uu ogaanayaa dad fara badan inay soo booqanayaan page-ka marka kor ayuu u soo kacayaa view-ga hoos ayuu u dhaceen marka ciladaas ayaan haysto waxaan ka codsanayaa dadku inay muuqaalka share gareeyaan isla markaana sidoo kale page-ka ay search gareeyaan sidaasina ay markaas kadib ay ku daawadaan muuqaalada balse marka hore soo dhawaada hadii aan ku bilaabo waxa haddana virus halis ah oo bacteria la yiraahdo salmonella laga helay ukumaha la cuno toddobaadkii hore waxaan idin sheegay in spinachka ama lettuce-ka oo hadda markii dambe la ogaaday shirkad Mexico ku taalo oo Tyler Farms la yiraahdo lettuce-ka ay soo saarto gobolada Mareykanka qaarkood ay gaarsiisay in laga helay bakteeriyada in wali aan la xakamaynin kiisaska la helayna ay sii badanayaan gobolada uu ku faafayana ay sii badanayaan oo 40 gobol ay hadda kor u dhaafeen haddana mar kale waxa soo baxday bakteeriyadan la yiraahdo salmonella oo laga helay mid kamid ah ukumaha la cuno waxaana la helay ilaa iyo 6 qofna ilaa hadda isbitaal ayaa loo dhigay marka waxa dib loo celiyay oo iskafaalooyinka ama shelfiska dukaamada cuntooyinka lagu iibiyo laga dajiyay ilaa iyo 19 milyan oo ukun ah waxaana inta badan noocan hadda bakteeriyada laga helay laga iibiyay ilaa iyo 6 gobol laakiin gobollo kalena waa ay ku faaftay marka bakteeriyadan salmonella waa bakteeriya halisa qofka waxa ay ku ridaysaa shuban matag iyo waliba qandho aad u daran sidaas darteed marka dadka waxa looga digayaa hadii gurigaada ay ukumahan ku yaalaan noocan aan ku sheegi doono oo waliba date-ka ama taariikhdaasi leh inaad iska tuurto oo aadan cunin hadii xanuunkaasi aad isku aragtayna inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad dhakhtar la xiriirto marka hay'adda la socoto cuntooyinka wadanka soo galaya ee ka baxaya iyo waliba daawooyinka ayaa hadda waxa ay leedahay ku dhawaad 100 kiis ayaa la helay waxaana ugu badan gobolka Texas ay ku taalo shirkadda xanaanaysa ama kambaniga xanaaneeya digaagan ukuntan dhalay waxaana in kambanigaasi magaciisa la yiraahdaa Midwest Poultry Services of North Manchester ayuu ku yaala marka waxa hadda isbitaal loo dhigay 26 qofood isla markaana kiisaskan markii dabagal lagu sameeyay waxa hay'adda FDA ay xakameysay cudurrada ay ogaatay dadka laga helay bakteeriyadan in ukuntaasi ay cuneen marka waxa la leeyahay in dadku ay soo report gareeyaan bakteeriyadan waxay soo bilaabatay November 22 sanadkii 2025 ilaa iyo June bishii 6 ee la soo dhaafay 2026 ayay socotay marka FDA-du waxay leedahay marka dabagal ayaan ku sameynay waxaan ogaaday dadka ka cabanaya aan ogaanay in ay ukumahan ay cunaan qof ilaa ay hadda u dhintay oo la soo sheegay ma jiro laakiin 26 qof ayaa isbitaal loo dhigay marka kambaniga la yiraahdo Midwest Poultry Services of Manchester arbacadii waxa ay sheegeen inay si mutadawacnimo ah ay dib u celiyeen 19 milyan oo ukun ah ukuntu marka waa ay kala duwan tahay marka dhinaca qolofka ukunta la eego waa ay kala duwan tahay marka ukunta qolofka cad la waayo ukuma qaar qolofkooda oo brown yahay ayaa jiro marka ukunta qolofka cad leh isla markaana boxiska ay ku jirto uu yahay brown-ka ayaa waxay yihiin ukumaha bakteeriyadan laga helay dukaamo kala duwan oo ilaa iyo 6 gobol ku yaala ayaana laga iibiyay marka dadka ugu badan ee hadda laga helay bakteeriyadan salmonella gobolka Texas waaye maadaama ku dhawaad 80 case laga helay maadaama
gobolka laga soo saaray ukuntaasi oo kambaniga soo saaray uu ku yaalo gobolkaas sidaas ayaa kiisaska ugu badan laga helay baaritaanka marka FDA da ay samaysay waxa ay ku ogaatay in dadka gabi ahaanba ku xanuunsaday amaba xanuunkan bakteeriyadan uu ku dhacay salmonella in ukuntaasi ay soo iibsadeen waqtigaasi isla markaana ay ka iibsadeen dukaamadaasi kala duwan marka waxa ay leeyihiin dadka haddii ay gurigaada ku yaalaan fadlan iska tuur ukumahaasi hana cunin amaba dukaankii aad ka soo gadatay dib ugu celi marka ukumahan waxa ay leeyihiin taariikh markasta wax kasta taariikh uu soo baxay taariikh uu dhacayo ayaa ku qoran inta badan taariikhda uu dhacayo ayaa ku qoran marka ukumaha marka waxa aad ku ogaan kartaa ukuntan waxa la soo saaray ukumahan ilaa iyo June 6deedii ilaa iyo July 3deedii taariikhda marka ay iibinta ku qoran waxa ay tahay oo xilliga la iibiyay in July 20keeda ay raada ilaa iyo bisha August ee soo socoto 17deeda in ay dhacayaan ayaa ku qoran marka haddii aad taariikhdaasi aragto fadlan ha isku gadanin ukumahaasi haddii ay gurigaada ku yaalaan sidoo kalena waa in aad iska tuurtaa marka liiska hadda productyada ay saameysay bakteeriyadan waxa kamid ah kartoonka ukumahaasi qolofka cadla ay ku jiraan waxa aad ku aqoonsan kartaa nambaradan soo socda shaashadana waan idin soo saaraya koodka ku qoran marka wuxuu yahay B-19 konton amaba eber 8 40 96 labo ayaa ku sawiran boxiska ukumahaasi qolofka cad leh ay ku jiraan waxaana sidoo kale ku jirta Julian date wax la yiraahdo oo date nooc kale ah oo 3 digit ah oo numberskaasi marka laga soo bilaabo 001 oo loola jeedo in January 1deedii ilaa iyo 365 oo loola jeedo December 31deedii ama nambarada ka bilaabanaya 157 ilaa iyo 184 haddii aad aragto marka date-kaasi fadlan ukumahaasi ha isku cunin oo iska tuur dukaamada marka lagu iibiyay haddii aad dukaamadan ka soo adeegato goboladan aad ku nooshahay ka digtoonaa dukaanka la yiraahdo Kroger waa dukaan aad u weyn isla markaana cuntada noocyada kala duwan lagu iibiyo marka dukaankaasi gaar ahaan gobolada kala ah Texas Louisiana waa dukaankaasi Kroger haddii ukuntaasi aad ka iibsatay qolofka cadla date-kaasina la fadlan ha isku cunin sidoo kalena waxaa jirta dukaamada kale oo la yiraahdo Brookshire Grocery oo iyaguna ku yaala Arkansas Louisiana Mississippi New Mexico Oklahoma Texas iyagana sidoo kalena waa lagu iibiyay dukaamo yar yarna waa ay jiraan sidoo kale hay'adda FDA ay leedahay waa lagu iibiyay marka dukaanka Kroger ukumaha nooca waaweyn ayuu iibiyaa oo kartoonka waaweyn ku jirta oo 12 xabo 18 xabo ilaa iyo 60 xabo ay ku jiraan sidoo kalena waxaa jirta mid kale oo isaguna medium brown ah oo cartooniskaasi ay ku jiraan 12 18 ilaa iyo 24 Brookshire marka isaguna waxa uu iibiyaa boxada waaweyn oo ay ku jiraan 6 xabo 12 xabo 18 xabo 36 xabo ilaa iyo 60 xabo waxaa jira sidoo kale jira Country Morning isagana dukaan la yiraahdo asaguna waxa uu iibiyaa kartoomada waaweyn oo 12 18 ama medium iyo large ka oo 12 xabo ay ku jiraan marka iska ilaali ayaa lagu leeyahay haddii aad aragto kartoomadaasi isla markaana waxa aad sameynayso waxay tahay qofka looga baahan yahay in ukuntaasi uu ka celiyo meeshii uu ka soo gatay lacagtiina sidoo kale dib ayaa loogu soo celinaya marka waxa gobolada hadda ku dhawaad 100 kiis oo 98 kiis laga helay waxa ay kala yihiin bakteeriyadan salmonella oo ukuntaasi laga qaadayo Arizona California Colorado Georgia Illinois Louisiana Michigan Missouri Mississippi North Carolina New Mexico Nevada New York Oklahoma South Carolina Texas West Virginia sida FDA-da ay sheegtay marka bakteeriyadaasi waa khatar waxaana sidoo kale jirta in bakteeriyadan dad ka badan 1.3 milyan Mareykanka sanad kasta ay ku xanuunsadaan marka sida wasaaradda beeraha ay sheegtay marka bakteeriyadaasina ha laga digtoonaado xanuunka ay sababi kartana calaamadaheeda waxaa kamid ah qofku inuu wareer dareemo calool xanuun uu dareemo qandho uu dareemo shuban uu dareemo sidoo kalena mantaq uu dareemo waxaa sidoo kale in waxyaabaha calaamadaha lagu garan karo ayay kamid tahay marka dadku inay ka digtoonaadaan ayaan kula talinaya ugu dambeyntii dowladda Iran ayaa shalay waxa ka soo baxay war la yaab leh qasaaraha Mareykanka gaaray muddadii hadda 13 maalmood ee dagaalku uu dib u bilaabmay afayeen u hadlay ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa waxa uu sheegay warbixin la yaab leh ninkan waxa la yiraahdaa General Husseini Muhaybi waxaana Tasnim Agency uu u sheegay interview uu siiyay in 15 maalmood oo hadda dagaalku uu socdo u dhaxaysay July 6deedii ilaa iyo July 22keedii in ciidamada Iran ay Mareykanka ka burburiyeen 11 diyaaradood
oo kuwa dagaalka iyo helikobtaro isugu jira kuwaasi oo saldhigyo kala duwan oo Mareykanka bariga dhexe uu ku leeyahay yiilay waxaana uu xaqiijiyay in duqeymaha Iiraan ay la beegsanayeen sidoo kalena 17 diyaaradood oo kuwa wax basaasa ah isla markaana sidoo kale iyo droniska iyaguna howlgallada ku jira in ay burburiyeen 8 ka midana waxa ay sheegeen diyaaradahaasi dronka kuwa cusub ayay ahaayeen waxay sidoo kale xaqiijiyeen diyaarad F-15 oo iyaduna ku jirtay meel diyaaradaha la dhigo diyaarad kale oo la yiraahdo AB-8 in sidoo kale iyo C-7 oo diyaaradaha xamuulka ah oo qaada ciidamada inay burburiyeen 8 diyaaradood oo kuwa iyaguna shidaalka diyaaradaha hawada ku siiya sidoo kalena in ay burburiyeen waxay sidoo kale xaqiijiyeen ciidamada ay dileen in 200 ay kor u dhaafayaan waxay yiraahdeen Mareykanku hadii uusan waxba qarinaynin warbaahinta waa inuu ku casuumaa halka qasaaruhu ka dhacay waxay yiraahdeen burburka halkaas ka jira iyo 4 askari oo Mareykanku 3 Jordan ay ku dhinteen midna diyaarad drone oo Mareykanku uu soo riday iyagoo doonaya inay tuuraan oo Ciraaq ku dhintay arintaasi waxba kama jiraan waxay leeyihiin maxay u diidan yihiin warbaahinta inay ku casuumaan shacabka Mareykankana been ayaa loo sheegaya iyo faataadug ay leeyihiin qasaaruhu ma ahan 4 askari oo kaliya 200 ayuu ka badan yahay dhimashada dhaawacuna intaasi waa uu ka badan yahay waa sida generaalkan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ka tirsan oo warbaahinada gudaha sida kuwa Tasnim Agency uu u sheegay marka dhinaca Mareykankuna ma uusan qaran hadda madaxweyne Trump waxa la leeyahay labadii maalmood oo la soo dhaafay waxa uu kulan la hadla taliyaashiisa qaaska ah oo dhinaca amniga qaranka waxana uu sheegay toddobaadka soo socdo in weerar xoogan oo haray loo arkin uu doonayo inuu Iiraan ku qaado dhinaca kalena waxaan ognahay Xuutiyiinta iyo Sacuudiga iyo Baabilmandab arrinta ka taagan oo maraakiibta ay bilaabeen inay weeraraan oo haddii marinkaas uu xirmo Hormuz uu xiran yahay tahay caalamkii oo idil in cunaqabatayn uu ku jiro arrintaasina waa arrin kale oo iyaduna soo korortay marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo